waxaan rabaa wax badan inaan ka hadalno ma rabo. waxaan rabaa inaan u hambalyeeno wiilasha 17 ka yar ee xulka qaranka Soomaaliya oo u gudbay ciyaarta kama dambaysta head finalka. waxa kale u gudbeen hadii Ilaahay yiraahdo in ay 2023 ka qayb galaan isla reebka Afrika. labada dal oo finalka timaada waxay ka qayb galayaan ciyaaraha ka dhacaya Algeria hadii Ilaahay yiraahdo 2023 marka xiriirka xulka kubadda cagta ee todobaad wuxuu ku guuleystay galabta inuu u soo baxo ciyaartaas isla markaasna oo final u soo gudbo. waa laba mantaanood oo isaaran xiriirka kubadda cagta iyo malaayiin Soomaaliya oo kubadda cagta jecel waxay ka farxayeen wiilasha yararka ay ka farxayeen. waxaan aaminsanahay haddaan nahay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta inaan adduunka intiisa kale wax la qaybsan karno. waxaana si wanaag galabta waxaa fadhiya macallimiintii oo xulka qaranka horena guulaha u soo hooyay 2018 waxaan soo baxnay sidaan oo kale final. waxaan la ciyaarnay Tanzania Uganda sanadkaasna waa ka badinay. 2018 marka final aan gaarnay waxay ahayd inaan qayb galno ciyaaraha qaybta dambe waa ka qayb gali kari weynay waana la ganaaxay 2 sanaana la ganaaxay 2 sano haddaan ka soo baxno marka haddana markii labaad inaan haddana u gudubno waa wax aad iyo aad anfacaya ummadda Soomaaliyeed. insha Allah marka kana waxaan rajaynaynaa inaan diyaar garowga halkiisa ka sii wadno aanan diyaarino xul aad u adag si aan 2023 uga qayb galno. macallimiinta qaarkood halkan fadhiya waxay leeyihiin World Cup-ka inaan aadnaan rajo ka qabnaa. afar dal oo sareysa waxay ka qayb galayaan kulli World Cup-ka aadayaan marka waxay leeyihiin afarta dal oo u dambeeysa aan gaari karnaa waa isku day karnaa. insha Allah annagana waa la qabnaa haddaan nahay madaxda kubadda cagta wax kasta oo aan awoodno annagoo kaashanayna wasaaradda dhalinyarada isboortiga dawladdeena shacabkeena iyo dhammaanteen annagoo iskaashanaynana waxaan u galaynaa diyaar garow aad u adag. kubadda cagta adduunka hadda waxay noqotay business waxay noqotay dadka in la isdhex galsho marka xiriirka kubadda cagta macallimiintiisa iyo kulligiisa soo isku duuban ciyaartooyda nooc kasta uu yahay iyo saxaafadda ka shaqeeya isboortiga dhammaanteen waa ku wada faanina guushaas waa guul ummadda Soomaaliya soo hoyatay. wiilashuna aad u faraxsan yihiin haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan rabaa in madaxda dalka u sareysa qaarkood ay ku booqdaan meesha ay joogaan inta ayna fiilka gaarin ay ku dhiirigeliyaan madaxa ka socda xiriirka kubadda cagta inay tagaan waa u badan tahay si loo dhiirigeliyo ummadda Soomaaliya dhammaanteen. waxaan leenahay wiilashaas in la dhiirigeliyo aad iyo aad u mahadsantihiin. galabta wax kale ma ku dhex diri karo waxyaabo badan iska soo dhicdhici kara marka ma rabo wax kale inaan ka hadlo. guusha galabta waxaan ka leenahay guushaas kaliya oon aad iyo aad ummadda Soomaaliya ugu hamuun qabtay aad iyo aad in wiilashaas u mahadsan yihiin. inta badan dadka ka shaqeeya kubadda cagta way aaminsan yihiin in aan dadka wax la qaybsan karno way aaminsan yihiin haddii ay dhiirigelin helaan. dadka Soomaaliya waxa arkaysa ciyaartoy aan ciyaarin ayagoo dhahaya kuwaan wax ma tarayaan. waxaa la rabaa marka horeba dadkan in khayr la rajeeyo. ninka la ciyaaraysa waa bini'aadam adoo kale ah wax kastana waxay guushan waxay timaadaa marka loo diyaar garoobo waxay timaadaa marka inaad dhiiranaato. anaga mar kasta marka waa ku dhiiranahay inaan ummaddaas wax la qaybsan karno inaan bariga Afrika wax la qaybsan karno maahay adduunka wax la qaybsan karno. waxaan ognahay ciyaartooyda meeshaas joogta waxa uu tagay dad oo indhayaasha ciyaaraha oo dadka ciyaartooyda gada qaarkood meesha tagay wana soo xiriireen. waxaan rajaynaynaa mustaqbal in la helo ciyaartooy ka timid gudaha Soomaaliya oo professional ciyaaraysa dreamkeenu kaas waaye. waana mahadsantihiin wiilashan guul aan rajaynana dhammaan saxaafadda oo sida wanaagsan uga shaqeysa kubadda cagtana waa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. waxaan leeyahay dadka hal dhiirigeliyo kubadda cagta annagoo isla jirnane aan wada guuleysano guushana Soomaaliya iska dhamaanteed. waxaan kaloo halkaan rabaa inaan uga mahadceliyo wasiirka dhalinyarada isboortiga xildhibaan Maxamed Barre Maxamuud oo nin dhalinyaro ah mar kasta inuu dhiirigeliyo dhammaan isboortiga guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta diyaar u ah meelahay joogaan ku soo booqda meel kasta taga. waxaan rajaynayaa insha Allah habeen dambe inuu casho sharaf uu sameeyo Addis ciyaartooyda wuxuu ku maqan yahay Puntland. waxaan rajaynayaa in safarkiisa uu soo gaabiyo si dhalinyaradaas oo uga qayb galo farxadda. annagana waxaan leenahay wasiir aad u mahadsan tahay garabkaagana taagannahay annagana garabkeena taagan tahay mahadsan.